kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa barteena Facebook iyo YouTube-ka ee Bilan Radio wararka maanta aan idinayna waxa kamid ah madaba in ra'iisul wasaare Roble midowga musharaxiinta ka dalbadeen joojinta doorashada golaha shacabka maxaa ka soo baxay kulankii dhaxmaray ra'iisul wasaare Roble iyo midowga musharaxiinta xoga ku saabsan ayaad ku dhageysan doontaan kuna daawan doontaan inta warka Bilan aad daawanaysid daawade ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta Puntland oo u goostay kuwa BSF siciidani oo wajahaya caqabado hor leh xoga ku saabsan ayaan iyadana idin soo gudbin doonaa iyo sidoo kale howlgalo laga sameeyay xaafado ka tirsan magaalada Kaalkacyo ee u diyaar garooba wararkeena oo intaas ka dhameystiran isku soo noqod wanaagsan marka kale waxaad u diyaar garowdaan wararkeena oo dhameystiran waxaan ku bilaabaynaa madaba in ra'iisul wasaare Roble midowga musharaxiinta ay ka dalbadeen joojinta doorashada xildhibaanada golaha shacabka kadib kulan dhaxmaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo sidoo kale midowga musharaxiinta ayaa looga hadlay habsami u socodka doorashada iyadoo oo arrimo badan la isku soo qaaday kulanka ayaa waxa isugu yimaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha midowga musharaxiinta waxa ay kaga hadleen arrimaha doorashooyinka dalka midowga musharaxiinta ayaa walaac weyn waxa ay ka muujiyeen daafurnaan la'aanta ka jirta doorashada dalka ka socota iyo sida aynan raali uga noqon karin habka ay iminka wax ku socdaan ra'iisul wasaaraha ayaa madaxda musharaxiinta uga warbixiyay dadaalkiisa joogtada ah ee la xiriira xaqiijinta hufnaanta doorashada waxa uuna la wadaagay in uu faray guddiyada doorashooyinka in ay waajibkooda ka gutaan si waafaqsan habraaca lagu heshiiyay ee doorashooyinka ku aadan ra'iisul wasaaraha isaga oo tixgelinaya tabashooyinka la xiriira daafurnaan la'aanta doorashooyinka ee ay muujiyeen midowga musharaxiinta dareenka shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka ayaa waxa uu ballan qaaday in golaha wada tashiga qaran la yeelan doono kulan ku saabsan sidii si wada jir ah looga shaqeyn lahaa in doorashadu dalka ka dhacdo ay noqoto mid si hufan looga sixi lahaa qaladaadka ka jira ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in guddiga doorashooyinka heer federaal iyo sidoo kale heer maamul goboleed uu qabanayo sidoo kale shir fogaan arag ah kaas oo ay kaga hadlayaan daafurnaanta doorashada isagoo cadeeyay in lala xisaabtami doono cid kasta oo ku xadgudubta daafurnaanta doorashada dhinaca kale ee isla wararka midowga musharaxiinta ayaan ku jirnay waxa soo baxay xogo hoose oo ku aadan in midowga musharaxiinta ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ka dalbadeen in doorashada hadda socota la joojiyo waxa sidaas laanta afka Soomaaliga ee BBC-da u sheegay Ridwaan Xaaji Maxamed oo mar soo noqday ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka isaga oo sheegay in ay dalbadeen maadaama hanaanka wax ku socda aysan midowga musharaxiinta ku qanacsanayn ciidamo ka tirsan daraawiishta Puntland ayaa u goostay kuwa BSF iyadoo oo ay soo baxayeen warar kala duwan xiisada magaalada Boosaaso ay ahayd mid maalmihii dambe cirka isku sii shareereysay ciidamada ammaanka Puntland ee BSF ayaa magaalada Boosaaso waxa ay ku soo bandhigeen ciidamo ku labisan dareyska ciidanka daraawiishta Puntland kuwaas oo sheegay in ay ka soo baxeen difaacyada aaga kala baydh una wareegeen dhinaca BSF saraakiisha hogaaminaysa ciidamada ayaa waxay sheegeen in difaacyada uga soo baxeen duruufo kala duwan iyo sidoo kale in xukuumadda dani ay doonayso in ciidanka ay isku horkeento saraakiisha ciidanka BSF ee ciidanka soo dhaweeyay ayaa dhankooda waxay sheegeen in aysan diyaar u ahayn in ay dagaal la galaan ciidanka kale ee Puntland ee hal cadow ay leeyihiin isla markaana ay soo dhaweynayaan ciidamo kasta oo dhankooda soo aadaya talaabadan ciidanka ka tirsan daraawiishta Puntland ugu soo biireen kuwa BSF ayaa ku soo aadaysa xilli magaalada Boosaaso ay ka taagan tahay xiisad ka dhalatay xilka qaadistii agaasimiye hay'adda BSF ee uu sameeyay madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ugu dambeyntiina waxaan eegaynaa howlgalo laga sameeyay xaafado ka tirsan magaalada Kaalkacyo howlgaladan oo ahaa kuwa lagu xaqiijinay amniga sidoo kalena lagula dagaalamayay muqaadaraadka qamriga iyo ciidanka booliiska oo galmudug waxa ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada Kaalkacyo howlgaladan ayaa waxa si wada jir ah u fuliyay ciidamadii horay
u joogay magaalada iyo kuwa cusub oo dhowaan tababar loo soo xiray. Saraakiisha ciidamada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegeen in howlgalkan lagu xaqiijinayo amniga uu sii socon doono, waxaana ay ciidamada kula dardaarmeen in shacabka u turaan inta ay howlgalka ku jiraan. Saraakiisha ma shaacin waxyaabaha ay kusoo qabteen howlgallada, iyada oo uu saameyn ku yeeshay howlgalkan isku socodka dadka iyo ganacsiga koonfurta magaalada Kalkacyo ee gobolka Mudug. dhowr jeer ayay ciidamada amniga Galmudug iyo Puntland waxa ay si wadajir ah u fuliyeen howlgalladan noocan oo kala ah, iyaga oo gacanta kusoo dhigay maandooriyaal khamri ah iyo dadkii ka ganacsanayay. guud ahaan warkii aad ka daawanayseen barteena Facebooka iyo YouTube-ka ee Beran Radio. anaga intaas daawada waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan bogeena like saar si aad noogu soo biirtid, sina share garee muuqaalkan si saaxiibadaada kale u gaaro. mahadsanid daawade.